فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto bal muslimiinta caamatan fi kulli makaan faajicadii weynayd ee dhacday qaraxii weynaa ee dhacay arrintii xanuunka badnayd ee ummadda Soomaaliyeed ku habsatay dad masaakiin ah oo waliba sida wararku nagu soo gaareen u badan يعني ضعاف الناس haween iyo magaranaysa ilma iyo dhalinyaro iyo dad aswaaqdooda ka shaqaysanayay dad maar ahaay oo wadada iska marayay dhibka weyn ee ku yimid ee geerida xanuunka badan ee ku timid ee cadadka inta la eg iyadoo dhibkan horeyba u soo jiray oo dhibaatooyin fara badan ay soo dhacayeen laakiin sidan oo kale hadda ka hor aan u maleynayay inaysan jirin ama ay haday jirtana ay yarayd ayaan waxaan tacsi uga dirayaa marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gaar ahaanna dadka walaalaheen ahalkoodii ka geeriyooday ee geeridaas xanuunka badan ay ku timid waxaan leeyahay sabir iyo iimaan Allah idin siiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa jalla jalaaluhu dadka walaalaheen ee meesha ajashoodii ay ku timid ee geeridaasi ay u timid ma oranayno sida haday noqon lahayd saasay noqon lahayd sida haday noqon lahayd law kaana ma oranayno maxaa yeelay arrin qoran bay ahayd oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu go'aamiyay jalla jalaaluhu waana qadihiisa waana ku sabraynaa. waxaan ilaahay ka baryayaa dadkaas in ilaahay subxaanahu wa ta'ala u naxariisto ظلم iyo cudwaan ayaa ku dhacay in ilaahay shahaado uga dhigo oo shuhada cinda Allah tabaaraka wa ta'ala ay noqdaan ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabir iyo iimaan uu ka siiyo. dhammaan kulligeenba arrintani aad bay noo xanuujisay aad baan uga wada xumaanay wala naqulu illa ma yurdi rabbana mana oran karno waxaan ilaahay raali gelinayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ayaanu leenahay. marka insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryayaa in uu khaatimo ka dhigo oo dib dambe aysan ummadda Soomaaliyeed ayna arkin baan ilaahay ka baryaynaa insha Allah ta'ala. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa jalla jalaaluhu wa amma nawaluhu wa la ilaha ghayruhu bi asma'il husna wa sifatihi al-ula in ummaddeena Soomaaliyeed ilaahay dhibka iyo cadaawada iyo magaranaysa colaada iyo abaarta iyo rafaadka dhan ilaahay uu ka qaado. taas halkaasaan ku soo gabagabeynaya waxaan kaliya aan maaragtay halkan tilmaamaya falkani fal aad u fulxun buu ahaa xaqiiqatan sida ilaa hadda aan wararka ku hayno ama aanu maqlayno taxqiiqi ama baaridii baa wali socota oo waxaan wax ka dambeeya la garan maayo laakiin guud ahaan wax fal la sameeyay falka iyo ficilka la sameeyay dadkii sameeyay laba mid weey haday aakhira rumaysan yihiin oo dad inay bari rabbigood la kulmayaan rumaysan ay yihiin anigu ma garanaya yani nin ilaahay la kulmaya oo bari rabbul aalamiin hortiisa istaagaya oo og ilaahay agtiisa ذنوبته وواوين بعد الشرك بالله إنه تهي إراقة دم مسلم مركي ددك مساكين تهي ريد كهي على غفلة في حالهم إسكاها وربهين بقى أي بريتو أي كوقف صدانه ويكوكو دقان وإسكاك على الميان وبأي ذنب قتل أفسدوا إلهي بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلتني بين يدي الله وكويلاه wixii aad ku jawaabi lahayd ayaa laga doonayaa. marka hadiiba qofkaas aan hadda ama dadka ficilka sameeyay dad aakhira rumaysan ay yihiin oo bayna yaday ilaahi tabaaraka wa ta'ala barito hortagay waxaan xusuusinayaa
sida rabbigan ba inoo xusuusiyey wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah thumma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun horay baa ilaahay noogu sheegay sidii maaragtay markii intaan islaamku intaan nabigeena ilaahay subxaana wa tacaala una soo dirin oo islaamka noogu nicmaynin jaahiliyadii nin ilaahay ilma siiyey gabadhii uu dhalay intuu qaaday oo weliba sida baxdal waqaa'ic ay sheegayaan gabadhii oo iska hadlayso oo aabaheed garka ka masaxayso oo isaguna qabri buu u qodayaa ciidii oo qabriga garkeed soo gaadhay iyaduna ka masaxaysa markaasuu afgambi u rogayaa iyadoo nool buu aasayaa يوم القيامة وربنا ليه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت عموما dadka muslimiinta ahee halkaa ku dhintay su-aashaasaa kaaga imanaysa ninkii falkan ka dambeeyey oo haddaad nin aakhira rumaysan tahay biayi dambin qutilat waa jawaab lagaa doonayo waana arrin annaga waajibnugu ah inaanu ku gaarsiino oo bayna yaday illaahi baanu kulligeen hortagi doonaa wasataridu qadan fataclam berrita ayaad bayna yaday illaahi hor joogsan doontaa oo arrinta aad ogaan doontaa haddaad maanta ogaan weysay waxaan saa u leeyahay waa haddaad aakhira rumaysan tahay waa ninka falkan leannu dad aakhira rumaysan baa laga yaabaaba si qalad inay wax u galaan haddaan qofaan aakhira rumaysnayn oo aan ma garanaysaa ilaahay agtiisa wax u oolin uu yahayna fakaa fiihi dambuhu gaalnimadiisaa ku filan fii jahannam walciyaadu billah marka in sha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay noqoto tii ugu dambaysay ummadeenna ku dhacda inay noqoto waxaanan warkaygii mar labaad kusoo khatimayaa ilaahay waxaan ka baryayaa dadkaa walaalaheen ee dhintay in ilaahay u naxariisto in badan oo dhaawacaa jirtay ilaahay si degdega caafimaad inuu ilaahay u siiyo in badan oo maalkoodii iyo guryahoodii ku waayay baa jira ilaahay ciwad ka khayr badan in ilaahay uu siiyo arrinta labaadna waxaan leeyahay dadkan walaalaheen ee dhibkan uu soo gaaray waxaa wanaagsan inaanu ducayno waa daruuri oonu dadkaa dhintayna u ducayno ilaahay u naxariisto kadalika sidoo kale dadkaa dhaawaca ilaahay inuu caafiyo sidoo kale haddii wax loo qaban karana in qof walbaba taagtiisa wuxuu u qabanayo khaasatan dadkeena dibadaha jooga haddii qorshe noocaas jiro maaragtay dadkaa walaalaheena wax loogu kaalmo loogu dirayo in arrintaasna iyadana insha allahu tacaala aan ka wada qayb galno ayaan soo jeedinayaa والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته